duwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Jaras ayaa maanta kormeer ku tagay kaam ku yaala deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne. Halkani waa kaamka Caynte oo ku yaala xaafadda Xawataako oo ay ku nool yihiin dad aanan haysanin hooy iyo nolol wanaagsan. Maxamed Cabdi Jaras oo maanta kormeer ku tagay kaamkani ayaa eedan u jeediyay hay'adda DRC qaybteeda magaalada Muqdisho isagoona sheegay in ay dadka ku nool kaamkani ay ka duumiyeen guryahooda ayna u dhiseen baco oo kaliya loona baahan yahay in ay u dhisaan guryo wanaagsan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Waa aniga oo isku duwa wasaaradda shaqada shaqaalaha gobolka Hiiraan oo u kurgalay maanta mar labaad inaan u dhaqaaqo kaamamka dadka barakacayaasha ah ee ka soo barakacay gudaha Soomaaliya gudihiisa ama abaarihii ama colaadihii ee ku sugan xerooyinka magaalada Beledweyne. Halkan waxa la yiraahdaa kaamkan magaciisa kaamka Caynte ayaa la yiraahdaa. Waxaad arkaysaan halkan waxa lagu leeyahay waa guryo Ilaahay baan idigu dhaarshay baa arkaysiin. Dadka markii hore waxa u dhisnaa guryo aqal Soomaaliya oo aqaladii Soomaalida hore oo hiday dhaqankeeda falkayaasha laga dhisi jiray. Wixii laga dudumiyay hay'adda DRC ayaa waxay tiri guryaha idin dhisayna waxaan waxa way qoryo tiirara oo u jeedin tiirar iyo waxa la saaray bacyaashaas ka go'an. Marka horeeto calaamadda arkaysaan waa DRC calaamadaas u jeedin aan istu soo maradan ka faydiya waa DRC Danish Refugee Council hay'adda DRC ma inaan ka cabanayna shaqaaleedan Beledweyne ku sugan oo macluumaad galino hore u joogi jiray ama injineersana hadda si haye ma inaan ka cabanayno waxaan ka cabanaynaa DRC xafiiskeeda Muqdisho iyo xafiiskeeda ku yaala Denmark ayaan ka cabanaynaa iyo ninka Soomaaliya ugu sareeya daahir ilaa xamar fadhiya uma dul qaadanayno dalka ku sugan magaalada Beledweyne barakacayaasha in waxaas loo dhiso markay dabaysha ku cadana qaylay ku dilayaan marna maxaa ku dhaawaan nabaad guur intay jeexjeexmeenay arradii dhax galeen nabaad guur ka dhalanayo wasaqa ka dhalanayso bi'adii ay wasaqeeyeen dadkan waa dad masaakiin ah waxay u baahan yihiin gacan qabasho markood Ilaahay wax ka rabaan marka labaadna hay'adii wax u qabanaysa wax muuqda inay qabato mar dambe ma yeeli doono anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha gobolka Hiiraan anigoo ku hadlaya magacayga Jaras mar dambe uma dul qaadan doono in dadkan korkooda wax lagu xiriir doono lagu sameeyo waan ka qabanaynaa ma yeelayno mana yeeli doono madaxweynaha Hirshabeelle raali ka maaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan raali ka maaha cid raali ka ma jirto waxaan wasiirka shaqada shaqaalaha iyo wasaaradda shaqada raali ka maaha dadkeena lagu tunta ma yeeli doono dadkan waxay xaq u leeyihiin laba qol iyo mas'uul jikin loo dhiso Garawe Kismaayo Koonfur Galbeed waxa laga dhisay guryo dadkan oo kale loo dhisay gudoomiyaha gobolka waa la hadlay waa ka wada shirnay xamar gaaladan kula soo kulmo xaaladan kula soo shiray waxay diyaar u yihiin dadka inay guryo u dhisaan 2018 xilliga cali jeed gudoomiyaha gobolka ah ayaa Cabdullaahi Warsame walaal shirka u qabtay oo yiri maamulku waa inay boos inay bixiyaan dhul booskii dhulkii waa naga diyaar gudoomiyaha gobolka Hiiraan diyaar u yahay madaxweynaha Hirshabeelle diyaar u yahay diyaar aan wadanahay hay'aduhu u soo diyaar garoon dadka inay wax qabad sax oo cad oo run ay u qabtaan waa dhamaatay enough xilligii bacyaasha waa laga gudbay adduunka emergency kuma jiro waxa loo baahan development guryo in loo dhiso loo keeno injiimanka ku shaqeeya system solarka loo keeno cagafyo $8 $7 la isku tuuro dadkan uma xabuu tarimaayeen waxa qabad run ay u baahan yihiin hay'adda DRC ee gobolka Hiiraan ku sugan baaq kale u dirimaayo waxaan u dirayaa aniga baaq email oo maanta u diray DRC Muqdisho ayaa jirta ayagana waxa laga rabaa shirka la sugu imaan doono iyo inay ayaguna ka hadlaan ay dhahan maamulkii gobolka waa diiday waxaan ummadii dhibaatay ku tahay Ilaahay baan kugu dhaarshay qorraxdaan la taagnaan karin oo cagaha madaxa aan ka gubanayo ninka la yiri waxaan ku noolow waa si dhinta waay dadkan dhimasho ma ogolin DRC waxaan ugu baaqayaa dadkan inay ka dayso waxaan shalfiga la dhahay shalfi ee tiirarka iyo bacyaasha la saara dadka uma baahna waxa qabad runa oo developmentiya oo horumar ah oo dadka wax tarayo oo raasimaal dadka loo sameeyo intaas ayaan fariyaa DRC Maxamed Faransa Jubaland TV Beledweyne.